السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhammaan ardayda Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan. Ku soo dhawaada casharada imtixaanaha ahaa oo aan ugu talagalnay inaan kaga qabtirno bulshada Soomaaliyeed ee jecel inay kororsadaan aqoonta Ingiriiska dhinaca grammarka. Casharadii hore waxaynu kaga soo hadalnay proper noun iyo common noun. Aynu ku sheegnay magac gaar loo adeegsado iyo mid guud. Qaybtan waxaan kaga hadlaynaa waxa loo yaqaano pronouns. Pronouns waa magacyaal la dhigo booska magaca. Pronounka waxaa loo isticmaalaa inaad kaga maaranto magaci gaarka ahaa iyo midka guud labaduba adigoo adeegsanaya wax u dhigma magaci. Cashirkan ayaan ku falanqayn doonaa waxa uu yahay pronoun. Pronoun is a word that takes place of common nouns or proper noun. There are different kinds of pronouns. Pronounka waa eray la dhigo booska nounka common noun ha ahaado ama proper noun ha ahaado. Waxaa jira sidoo kale noocyo kala duwan oo pronouns ah. Personal pronoun ayaynu maanta qaadanaynaa. Personal pronoun, the words erayada I, you, he, she, it, we, and they are called personal pronouns. Erayadani waxaa loogu yeeraa personal pronouns oo micnaheedu yahay magacyaalka loo adeegsado sida shakhsiga ah. They take place of nouns and are used as a subject of the verb in the sentence. Waxaa la dhigaa booska magaca waxaana loo adeegsadaa ama loo isticmaalaa subject of the verb oo micnaheedu yahay su'aal sameeyaha ficilka jimlada ku jira. Tusaalooyinkan hoos ku taxan ayaa noo qeexaya oo si fiican u faahfaahinaya waxa uu yahay pronoun. Qodobka koowaad waxa weeye my name is David. Magacaygu waa David. I am the youngest in the family. Sida muuqata calaamada buluuga ayaa la saaray waxa loo yaqaano personal pronoun oo I ah. I ayaa waxa ay tahay personal pronoun. Sida darteed waynu calaamadinay oo waynu ka saarnay jumlada si gooni ah midab gaar ah ayaynu u samaynay. Tan labaad, this is my mother. Afwan, this is my father. He is a teacher. Kan waa aabahay isagu waa macallin. Sida muuqata he ayaa waxay tahay personal pronoun oo booska magaca aan isticmaal lahayn Cali, Cumar iyo Cabdi. He ayaanu u adeegsan karnaa. Tan saddexaad, this is my mother. Tani waa hooyaday. She is a lawyer. Iyadu waa garyaqaan ama qareen. Haddaba she ayaa inoo muujinaysa inay tahay personal pronoun. I have a brother. Waxaan haystaa hal walaal and two sisters iyo laba gabdhood oo walaalahay iyaguna. I ayaynu muujinay inay tahay personal pronoun oo calaamad gaar ah ayaynu saarnay si aynu uga garanno jumlada halka ay kaga jirto. They are Peter, Sharon and Jeannie. Ayagu waa wiilashaas magacyadaas leh waxaan taxani waa magacyo. They ayaan uga goleenahay ujeedkeenu waa they. They ayaa ah personal pronoun. I have a dog. Waxaan haystaa ayaan haystaa. It is called waxaa lagu yeeraa eyga Lucky. Hoodaale ayaa lagu yeeraa ama Lucky. Lucky, you are a good dog. Eyga ayuu la hadlayaa oo wuxuu yidhi Lucky, you are a good dog. Ey wanaagsan ayaa tahay. You iyo it labadaba uu isticmaalay sidaa darteed personal pronoun ayuu adeegsaday isagoo qof ka dhigaya oo sida qaabka qofka oo la hadlaya iyo asoo si xawayanka oo la hadlaya labaduba. It markuu isticmaalay wuxuu adeegsaday pronounka loo adeegsado shay ama waxyaabaha xawayaanaadka. You markuu isticmaalayna wuxuu adeegsaday pronounka
loo adeegsado dadka bini'aadanka ah oo wuu qofaynayaa qof camal ayuu oola hadlayaa. Good morning children. Subax wanaagsan carruuray. You are my sit down. Cafwan. Good morning children. You may sit down now. Subax wanaagsan carruuray. Waa aad fariisan kartaan hadda. You ayaynu isticmaalnay oo waxaynu oranaynaa waa personal pronoun. Qodobka ugu dambeeya, my family and I live in a big city. Aniga iyo familkiin waxaynu ku noolnahay magaalo aad u weyn. We have apartment. We have apartment. Waxaynu uga gol leenahay pronounka ama personal pronounka meesha ku jira oo ah we iyo I. Haddaba haddii aynu gudmar ku samayno dhammaan pronouns-kani waxa ay u yaalaan booska magacii aan isticmaali lahayn oo ahaa magacyada bini'aadanka ama ashyaada. Good. Waxaan rajaynayaa inaad ila socoto. Haddaba pronouns-kani waxaynu nidhi waxaa loo isticmaalaa subject ama su'aal sameeye sida kor inoogu xusan. Subject of the sentence is a person. Subjectiga waa qof, xayawaan, meel ama shay ay noqon kartaa, taasoo ah ficilka ama statementiga xaalka uu ka bilaabanayo. Okay, waxaan rajaynayaa inay kaa dhaadhacday. Qodobka labaad ama topica labaad ee noogu xiga waxa uu yahay waxa loo yaqaano object pronoun. Object pronoun waxa loo yaqaano ayaynu ka hadlaynaa. Object pronoun waa cagsiga ama kasoo horjeedka subject pronoun. Subject pronouns-ka waa kuwaan ka soo hadalnay ee they, I, we, she iyo he intaas ba lahaa. Kuwanina waa objectigooda ama kasoo horjeedkooda. The words me, you, him, her, it, us, and them are also personal pronouns. Marka hore waa personal pronoun oo kama foga iyaga. They also take place of nouns. These pronouns are used as object. Booska magaca ayaa la dhigaa waxaana loo isticmaalaa object. Halka kii hore aan u isticmaalinay subject. Object macnaheedu waxa weeye end of the sentence ama halka ay jumlada ku dhamaanayso. Subjectigana waa halka ay ka bilaabanayso. Good. Tusaalahan haddaynu eegno I am standing on my head. Look at me. Me ayaan uga gol leenahay oo me ayaa ah halka ay jumlada ku dhamaatay oo objectiga ah. Tan labaad, my mother is kind. Everybody like her. Her ama her kaa doontaba ugu dhawaaq ayaa waxay tahay objectiga. Macnaha waxa weeye hooyaday waa mid naxariis badan. Qof kastaana waa uu jecel yahay. Lisa gabadha la yidhaahdo I told you to tidy your bed. Ninkani wuxuu yidhi Lisa gabadha Lisa la yidhaahdo waxaan kuu sheegay inaad hagaajisto sariirtaada. You ayaa waxay tahay object. Sababtoo ah you markaan ka hadlayno object pronoun iyo subject labadaba waa ay noqotaa. Sidoo kale singular oo jamaca singular oo mufrad aan la cafwan iyo plural oo jamaca labadaba waa ay noqotaa. Okay. Sharon and Jane, Dad is waiting for you. Nimanka la yiraahdo Sharon iyo Jane aaba ayaa idin sugaya ayuu yiri. You ayaan uga goleenahay waxay noqotaa object iyo subject labadaba. Hadda statementiga ama jumlada waxay ugu jirtaa inay object tahay. Lucky and I, aniga Lucky, are playing in the back. Waxaynu ku ciyaaraynaa backinka ayaynu ku ciyaaraynaa. Dad is watching us. Dad ayaa ina daawanaya. Waxa uga goleenahay waxa weeye watching us
asked ayaan u jeednaa aan u soconaa pointigeena ah asked ayaa waxay tahay waxaa loo yaqaano object pronoun you must not play with a knife waa inaadan ku cayaarin mindida waa inaadan ku cayaarin okay give it to me give it to me ii dhiib aniga ama aniga isii sida kuu muuqata waa ay calaamadsan tahay dhammaan object pronounka sidaan usoo calaamadinay subject pronounka subjectiga waa su-aal sameeyaha objectigana waa halka uu falku ku dhamaanaya ee statementiga ay ku dhamaanaysa ama jumladda okay waxaan rajeynayaa inaad si fiican iila socoto qaybta dambe ayaynu ka faahfaahin doonaa qaybo kaloo aada u muhiima waa ku mahadsan tahay daawashadaada fadlan nagu soo biir haddii aad nagu cusub tahay